بسم الله الرحمن الرحيم. markuu hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eelkii qaraabada ka baxday walaasheen Ikraan Tahliil Faarax oo gacan ka xaqdaran ku dishay Soomaaliya ayaan halkan ugu tacsiyeynaa hadaan nahay qurbo joogta Soomaaliyeed ee Jarmalka. taas kadib waxaan si daraad weyn ah in gabar u xirneed dawladda Soomaaliya muddo 2 bilood ah haddana si fudud loogu soo qoray idaacadda afka qaranka ku hadasha oo lagu sheegayo gabadhaasi inay dileen qolyaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab. arrintaas waxay noqotay arrin aad u yaab badan. arrintaas waxay noqotay arrin ummadda Soomaaliyeed ay ku qanci weysay caddeynteeda iyo ka hadalkeedana waa mid laga sugayo madaxda dawladda Soomaaliya ee iminka xilka haya oo ugu horeeyo Ra'iisul Wasaare Roble. waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay idinkii in arrintaasi statement ku saabsan oo kaga hadal doono ku faahinayo gabadhaasi xaalkeeda iyo baaritaanka ka soo baxay dilkeedii iyo arrimaha ku saabsan dhammaan. waxaan leenahay qabrigeeda Allah u waasiciyo gacan ka khatarna dishay mar ka mid ahna waqtiyada cadaaladdeeda way heli doontaa oo dadkii dilay waa dad la xisaabtami doono. Assalaamu calaykum.